waxaan ku suganahay oon ka qayb qaadan magacaygu waa maxamed cali cumar waxaan ku suganahay oon ka qayb qaadanayaa barnaamijka kasii qiiro waana kasii ugu dhacay waxaan rabaa inaan la wadaago baahidinta Soomaaliyeed waqtigan iyo hadda dunidan iyo koonkan tobankii qof ee haasaa wadaagu ka dhaxeeya toddoba ayaa iska barta xiriirkooduna ka bilaabmaa baraha bulshada toddobadaatan shan ka mid ah waxay iska bartaan Facebook qisada maxamed iyo inantuna waxay ka bilaabatay aaladda Facebook sanadku markuu waxaan maalmaha kamid ah baraha social media gaar ahaan Facebook iska barna gabar Soomaaliyeed oo gabar aad u wanaagsan oo dabeecad fiican aan jeclay inaan ka sheekeeyo laakiin aan jeclay qisada igu dhacday ayadan dhex martay inaan ka sheekeeyo dabcan waxaan isbarnay 2019 dhamaadkiidaas barnay waa taqaan laba qof oo social media adna friends ku yaadan qof hadoo seedkiisa wax soo saarto qof kale sida uu falceliyo raashin waa bixiyo sidaas aniga qof raashin waa bixi jiray ayadan keega raashin ay soo bixi jirtay sidaas aan isku barnay gabarta qof dareen wahay because waxa waaye intaan isbaran ka hor muddo bilowina friends seedkiisa daawo jiray sidaas ay soo jiidatay mar haddii meesha la iska bartay tahay Facebook cid kastaana isticmaasho bilowgana qofka ay ku adag tahay inuu kala saaro qofkan kala dhinaca uu ka tirsan yahay ma inta xun mise inta wanaagga walaalka la ah ayaa maxamed caqabada koowaad ee qabsatay ay tahay sidii gabadhan u jeclaaday uu uga dhaadhicin lahaa dareenka dhabta ah ee uu qaaday taasina waxay maxamed ku qaadatay bilooyin samuuqusan ee uu u samray ugu dambeynna uu ku guulaystay damciisa aniga ka helay anaan xiriirku hor sheegtay horta muddooyin badan ay u qaadatay muddooyin bilowgan 2 bilood ama 3 bilood camaleed ay u qaadatay aan ka dhaadhicina qof ayadoo u baahan qof ayada aan jecelahay inay tahay waxyaabo badan waa tacaqabooyin badan baan soo dhex galeen laakiinse haddana iska qofku waa qof dumar waxaa rabaa in adiga dulqaadka bayso adiga aan raga wax badan caqabooyin bayna soo dhex galeen laakiin fiillahi alxamdu meesan ahayn waxyaabaha ku kala tanga meesan noqon gabadhan uu jeclaaday maxamed marna muuqeeda ma arko ma kulmaan sida dhiggiisuba laba ay waqtiga sula qaataan isaga iyo iyadu iskuma iman karaan oo ma kulmi karaan kaliya waxay ka wada hadlaan halkaas sababtuna waxay tahay gabadha aan ku noolayn halka uu ku nool yahay isagu oo Muqdisho ah balse waxay ku nooshay waxay sheegtay inaysan Muqdisho degnayn ee degantaa gobolada dabcan waan ka qaatay warkii muddo badan aan soconay muddo sanadaha waan soconay DPDF wax walba waa soo wada qaybsanay maxamed hooyadii aabihii lama soo korin oo isagoo 2 sano jira ayaa hooyadii ugu dambeysay waxa soo korsatay isaga eedadii aabihii la dhalatay eedadiisii soo korsatayna waxay noqotay caqabada ugu adag ee soo dhex gashay maxamed iyo inanta ay jecel wadaagga yihiin xiriirkeena waqti inaan ka mir dhaliyo waxyaabooyin caqabooyin badan ay hor istaagay aniga familkeyga koobkiin familkeyga haddaan ahayn meesan ahayn hooyadii aabihii waxay hor istaagay waxay maameeyay ilaa qeyraasi aniga soo karisay maxamed iyo gabadhii muddo sanad ah ayay wada socdaan xiriirkooda xoogaysay koboc marba marka ka dambeysana uu sii siyaadaya dareenka iyo xanuunka jacayl ee midba kan kale uu qabo labadooduba waxay isla qaateen in hadda la gaaray waqtiga ay qabsan lahaayeen xafladda arooska gurina ay samaysan lahaayeen oo hawshu guur ay joogto waxaana dhacay mar haddii DPDF la soo wada qaybsan meesha lagu soo guuray waa in aqal galnaa wada aroosnaa waxaan ku wada badanna guur wax walba soo dhacay diyaar u noqotay guurkeyga anigana waxa iga dambeeyay waa familkeyga ayadana family beelada aniga familkeyga baarinta u sheegtay familkeyga nacam bay dhahan aniga u sheegtay inaan gabar leeshiyay aan u baahana in lagu daro marka hore wax walba diyaar ay la noqdeen falcilinta marka hore ay muujiyeen waji farxad waji wanaag marka hore liigu muujiyaan soo dhaweeyay wax walba u baahan taan waa lagu qabanaa waa leeyahay waan la hadleen gabarta aabaheeda la hadleen anigu maqlaaya la hadlay maxamed inanta inuu guursado qoyskeeda gaar ahaan iyada aabaheed waxa uu shardi uga dhigay in wiilku Muqdisho ka soo tago oo ka soo guuro isla markaana uu yimaado magaalada iyadu joogto halkaasna uu la dego balse maxamed maadaama aanu hooyo iyo aabba la joogin waxa arrintiisii go'aan ka gaaray adeeradii iyo qoyskiisa oo eedadiisa caqabada ku hayday ku jirto
gabartii waxay dhahday aabiye wax buu sheegaa adeerkii gabarta dhalaa aniga soo wacay wuxuu yidhahay maxamed miya arrinkaas waa maqlay aniga waxaa kaaga baahanahay in anigii imaato magaalkaa joogaad imaato waxa lagaaga baahayaa mar gabartii anaa ku sii anaan kula diyaar aniga waxaa dhahay family iga dambeeyo familkaygaan uu soo bandhigay arrintaas familkaygan waxay igu jawaabay waxay dhaheen meel aan cidna kuu jirin aad cidna ka aqoonin aniga inaan kuu dirno diyaar uma nihin caqabada ugu weyneed meeshaasay ka bilaabatay maxamed xanuunka haya ma aha mid uu go'aanka labada qoys uu mid ahaan raaci karo inantii ayuu la hadlay balse ay arrinta xal uga wada gaadhaan iyadii ayaa markiiba war farxad la wadaagtay oo ku tiri arrinta waa u sheegay arrinta jirta waa u sheegay waxaan u sheegay weliba inuu idhaa aabeed gabarteeda haddaa meesha imaanaysa waa kugu dara haddaad imaanayninna kuma daraayo gabar kuma siisanaayo waa u sheegay ayadoo waxay dhahday aniga jawaabi u sug maalmo ka bacay jawaabi ugu soo celisay waxay dhahday anaa kuu imaanayo anaa diyaar kuwe familkaada wax walba u sheegay in aniga soo socdo inantii gaadha ayaa xamar u soo saaran tahay maxamedna way soo sheegtay inay dhankiisa ku soo socoto balse nasiib darro isaga gacanta waxba uguma jiraan waa dhalinyaro aan wax kasta fushan karin eedadiisii soo korsatay iyo qoyskiisa ayuu la wadaagay arrintaa jirta iyo inantii inay soo socoto waxaana lagu jawaabay maalin maalmaha kamida anigoo hurdaayo waqti walba ayada hurdada iga kici jirtay maalintaas hurdada waa ku dheeraaday 5 saac oo maalmo ayadoo la maraayay soo wacday waxay dhahday maxamed waa arrintaasaa jirto anigana waa soo baxay gaariyaana soo fuule xamaraana soo aaday anigana waa dareemi kartaa si ahay cunug dhalinyaraan iska ahay familkayga arrinta la wadaag waxaan nahay gabartu way soo baxday gaariyaana soo saaran tahay familkayga waxyaabaha qaar ay igu jawaabeen waxaa ka mid ahaa gabartaas aniga isma naqaano mana sheegano haddaa gabartaas raacaysidna raac adigana hadda albaabka kuu furan yahay gabartan waa raaci kartaa marka anigan raga ahaa nin wax walba ay u qaadato waa sameeyey gabarta xamar waa keenay waa ku soo dhaweeyey si weyn inantii lawaa qoyskeedu iyada ayay raadinayaan dhowr jeer ayay isaga la soo hadleen oo ay u tuhmayaan in isaga ay la joogto balse waxba kama helin ugu dambeyn maxamed labadii qoys ee isaga iyo inantu ka kala dhasheen ayaa la wada hadlay waxayna u sheegeen in gabadha berri loo doonayo loona meherinayo isaguna sheego inantu halkay joogto gabartu waa dareemi kartaa fahmi gabarteeda ka soo baxday ka soo tagtay inay samay kale aadi kana aniga toos li soo abaaray waa li weydiiyay aniga wax badan gabartii waa qariyay intaas ka bacdin gabartii way qarsoomi weysay waa la ogaaday in aniga la joogto waxa liiga dhaariciyay oo maskaxda liigu dajiyay oo aniga cideedii cid gabarta bay iga dhaariciyeen in gabartan liigu guurdoono bari ka bacdaba maanta qoyskii gabadha iyo qoyskii wiilku waxay iskugu yimaadeen inay isa siiyaan wiilka iyo gabadha iskuna meheriyaan maadaama ay raalli iska yihiin balse qoyskii wiilka ayaa u sheegay reerkii gabadha war aan kulaha laga filayn gabartii cideedii isla maalintii ku xigtay way imaadeen gurigeena imaadeen waa loo tilmaamay guriga tilmaamay ku imaadeen subaxnada kamid ah anuu hurdaayay gabartii imaadeen maalinta laadaayay wax xasuustaa abaar 3 saac amal meelahaas ay gabartii cideedii imaadeen way imaadeen familkayga la wada hadleen dabcan waxay ku hadleen waxyaabaha qaar aan la sheegi karin qof Soomaaliyeed oo san ku hadli karin damiin waa niman oo ku hadli karin waxyaabaha qaar ay ku hadleen waxaa kamid ahaa marka gabartii cideedii imaadeen waalidka ka socday waxaa lagu jawaabay aniga wiilkeen waa cashir karnaa idin gabartiina ma cashir kartiin labadii dhinac ku kala kacay qolihii farxadda iyo dhismaha qoyska laga filayay maxamed inkasta oo wax dhacay aanu la socon haddana waxaa soo wacday inanta hooyadeed oo u sheegtay wax kasta hadday dhacaan familkii aniga maalintaas anigana guriga waa joogaa guriga qolka dambaa jiifaa waxban kamaan ogeyn arrinta guriga dhex dhacday xabaara ka bacdi ali soo wacay gabarta hooyadeed oo dibadaha jirta ay soo wacday waxay yiraahdeen maxamed oo arrinkaas dhacay cidiina saasay ku hadleen marka waxa ka cusana ina gabarta guriga eedadeed geesid wax walba oo dhacana cidaada ka masuula
aniga guriga aniga jooga aniga waxba ku weynay arinta ka dhacdaa gabarta hooyadeed saas ii sheegtay in ciideeda familkeyga saas ku hadlay. maxamed ugu dambeyn waxa uu go'aan ku qaatay in gabadha uu celiyo isagoo eegaya duruufta ay ku sugan tahay inanta hooyadeed. aniga waxaa fiiriyay laba dariiq waa fiiriyay maantay dadka sidaan aniga ka dhashay maantay oo haddana gaar ahaan aniga soo kariyay haddii maanta sidaan igala dhaqmeen gabarta aabaheedna sidaan uu ku hadlay aniga waxaa fiiriyay markii aniga maana fiirin danteena maana fiirin danta hooyada gabarta dhashaa fiiriyay gabarta hooyadeedna marka way xanuunsaneed xanuunna way qabtay marka waxay yiraahdeen waxay iga cusubtay in aniga gabarta wado guriga adeeraasheedna geeyo maalmaha kamid abaar galabtii 9 saac gabarta waa waday guriga eedadeeda geeyay aniga ayadoo isla socono waa ka soo tagay maqribiya camal aan ka soo tagay waan wada habeenkii aan wada hadleynay habeenkii 7 saac ay ugu dambeysay saaka waa subax hore maxamed waxa la socday inantii waxay la wadaagtay war aan ku farxin oo ah inay saaka diyaarad ka raaxayso Muqdisho wax hal ahnaanu gacanteeda ku jirin kaliya uun ay macsalaaminayso badana saacad kadib ay la soo hadashay ma sheegtay subax markuu waaga bariyay 5 saac subaxna markay tahay soo wacday waxay yiraahdeen maxamed arintaas dhacday anigana hadda diyaaradan saaranahay wax aqaba kare ma jirto eelaboorka dhex taaganaa diyaaradna waa saaranahay muddo abaaro 1 saac ka bacdi soo wacdan waxay igu jawaabtay waxay yiraahdeen eelaboorka halka ka dagay waana kaasa aabiyeen hadii soo socdo nabadgelyo meeshaas ay ugu dambeysay warkeeda. maxamed wuu niyadjabay wuu rugaysay oo xanuunka daran ee qalbigiisa lucinaya waxa kaga daran qoyskiisii uu la noolaa soo korsaday ee waalidka waxa haddana noloshiisa mugdiga madow geliyay waxaana ku dhaqaaqay oo sagay aniga maadaama oo sidaas la qamaariga family-ki aniga aan ka dhashay eedada aabbahay la laabtay sidaas ay la qameen aniga family-kana mumcinaha walaa kinii jabay waana ka soo tagay hadda fiillahi alxamdu aniga hooyadii dhashay oo ugu dambeysay anoo 2 sano jira maanta dib loo midoobay waxaan ku noolaa guriga hooyadii muddo hadda ay ka soo wareegtay 7 iyo maalmo maxamed waxa sawirro iyo fiidiyo soo diray wiil ay qaraabo yihiin inanta arrinka wiilku maxamed la wadaagina waxay sababtay ilmada maxamed indhihiisa ku taagan waxa kale oo wiilku maxamed u sheegay in uu inantooda farxadeeda uu soo hambaliyo hadda khamiista maahan khamiisteeda kale habeen jimcaha markay tahay 4 saac habeenimo baa waxaa ii soo dhacay fiidiyoobi iyo sawiro waxaan ii soo diray wiil ayada ilmeeday yihiin waxaa la ii soo diray fiidiyoobi iyo sawiradan waxaa waaye gabarta arooskeedii waliba waxyaabaha badan oo wali raaciyeen waxay tahay sawirada waa taas way aroostay waan la aroosay una soo hambaliye wax ka xirna ma jiraan ugu dambeyn maxamed isagoo ilmada indhihiisa ceshanaya oo diidaya in dhulka u soo daadato waxa uu fariin u diray waalidiinta Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa awlaadooda intay yar yihiin waxay u baahan yihiin garab lagu siiyo wax walba waxay ku soo bandhigayaan haddii wax xun yihiin waa laga yaabaa inaad ka diido laakiin wax wanaagsan haddii yihiin inaad gargashiin isku dayo insha Allah aniga hadda ma ahan uma maleynayo man islaahay qofka jecelaasaan ku galay qofkan jecelaasay ma gelin aniga waalidkii dadka ka dhashay saareen galay waxaan dhahaa wiilasha yarka qalbigooda lagu ciyaarayo hal iska dhaafo